milatariga Somaliland ayaa goor dhow gaaray deegaano dhowr ah oo maalmihii la soo dhaafay ay ku wada dagaalamayeen beelaha walaalaha ah ee Ciise iyo Samaroon sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno milatariga Soomaaliya ama milatariga Somaliland waxay buux dhaafiyeen aaga tuulada Jidhi deegaanka Galmudug iyo sidoo kale Dixda Sheekh Awaare dhammaan deegaanadaasi waa deegaanadii ay ku dagaalameen ciidanka beesha Ciise iyo sidoo kale kuwa Samaroon Somaliland waxay rabtaa in deegaanadaasi ay gacanta ku dhigto oo ciidanka beesha Samaroon ay dib ugu laabtaan tuulooyinka Heemaal iyo Habaas sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka halka aan ka helayno xogaha la helaya waxay tilmaamayaan intan ay tahay awaaqib xoogan oo xaaladda dabka ku sii shidi kara isla markaana laga cabsi qabo in ay gooda isdaraan ciidanka beesha Ciise iyo kuwa Somaliland sababtoo ah Ciisuhu ma rabaan inay baneeyaan deegaanada ay ka qabsadeen beesha Samaroon taliyaha milatariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug ayaa la soo warinayaa in uu socdaal ku tagi doono deegaanadii lagu dagaalamay si uu xaaladda u soo indheeyo laakiin qorshaha Somaliland hadda ay wadato ilama ahan mid soconaya iyo mid hirgelaya sababtoo ah qorshayaasha ay wadaan waa kuwo xaaladda dabka ku sii shidi kara isla markaana geyn kara xaaladda meel aan waxba laga qaban karin xubnahan la hadalnay qaarkood waxay tilmaameen in ay adag tahay in xaaladdu ay gaarto meel aad u sareysa sababtoo ah hadda talaabooyinka Somaliland ay qaadayso waa kuwo u eg dagaal ama xiisada dagaal gelin kara wali waxa laga cabsi qaba ayaa la leeyahay in Somaliland iyo sidoo kale ciidanka Ciisuhu ay gooda istaraan dhinaca kale war kale oo degdeg ah oo hadda yimid waxa uu tilmaamayaa in suldaanka guud ee beesha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi uu tagi doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliya waa magaalada Andhahe Djibouti ee caasimadda wadanka Djibouti ila waraadiye lagu kalsoon yahay ayaa goor dhow inoo xaqiijiyay in Djibouti ay bilowday dhexdhexaadinta Samaroonka iyo Ciise Djibouti muddo 2 wiig ah waxa ku sugan ugaaska guud ee beelaha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim magaalada Djibouti sidoo kale waxa tagay suldaanka guud ee beesha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi waxa la filayaa in laga wada hadlo sidii xal looga gaari lahaa qolaadahan isla markaana loo joojin lahaa dagaaladan soo laabtay oo dad badan aaminsan yihiin in xalkoodu uu ku jiro wada hadal qowlo badan oo arrimahan la socotaahi waxa ay leeyihiin haddii aan la helin xal degdeg ah oo lagu xalinayo xaajooyinkaasi dabcan xaaladdu waxay tagi doontaa meel aan waxba laga qaban karin iyo waxa la arki doonaa isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah oo dabcan dhinacyada si kala fogeynaya haddii warkan uu 100% noqdo inkastoo warkan hadda baraha bulshada uu ku jiro haddana dad badan waxay u arkaan in warkan oo sax noqdaahi uu noqonayo guul istiraatiijiyadeed weyn oo dabcan u soo hooyatay dhammaan dhinacyada saamileeda ah ee isku hayay gobolka Awdal iyo shakhsiyaad ka macaashayay dagaalada halkaasi ka socda isla wararka Awdal intaana ka bixinna koonfurta aaga magaalada Lughaye ciidanka Somaliland ayaa xalay halkaasi howlgal ka sameeyay howlgalkaas waxa la soo warinayaa inuu ahaa mid si xeeladeysan u dhacay oo looga hortagayay in dagaal halkaas ay ka dhacaan ciidanka Ciise ayaa xalay damcay inay caga dhigtaan tuulooyin hoos yimaada magaalada Lowjacada ilaa Lughaye laakiin waxa ka hortagay ciidanka beesha reer Sheekh Isxaaq ama Somaliland sababtoo ah waxa ugu weyn oo ay ka cararayaan ayaa waxay ahayd in dagaal halkaas ay ka dhacaan isla markaana xaaladdu ay faraha ka baxdo sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Somaliland wuxuu sheegay in nabadda iyo xasiloonida walaalaha Ciise iyo Samaroon ay ka shaqeynayaan isla markaana iyagu aysan doonayn dagaal halkaasi ka dhaca qodobkeena ugu dambeeya ayaan daawadayaal soo qabanayaa waxaan fiirinayaa dhinacaas iyo magaalada Muqdisho wararka laga helay Muqdisho waxay tilmaamayaan in markii ugu horeysay ay wada kulmeen Axmed Madoobe Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Siciid Cabdullaahi Dani wax badan lagama ogo waxyaabaha laga wada hadlay iyo in saddexda nin ay wada gar dhigteen haddana xogaha la helayahay waxa ay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay ay jirtay aragti la xiriirta in la wada hadli karo oo wada hadal iyo wada xaajood xaaladda lagu dhameyn karo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la soo warinayaa in uu door ku lahaa sidii ay labada nin ama saddexda nin isku arki lahaayeen isla markaana laga wada hadli lahaa qodobada muhiimka ah ee hortiminta u leh sidii shir uga dhici lahaa filla Soomaaliya dabcan Axmed Madoobe iyo Siciid Dani wali waxay ku adkeysanayaan in shirka golaha wadatashiga lagu qabto oo aan laga leexin xandaabka xirada xalane filla Soomaaliyana waxay leedahay shirkaasi macquul ma aha inuu halkaasi ka dhaco ee madaxtooyada ayuu ku dhacayaa
taasi oo dabcan labada dhinac ay aad ugu kala aragti duwan yihiin gudahaan saaxiib yaal wararkeen intaas bay ku dhan yihiin waa mahadsantihiin rabadaan wanaagsan